kooxda al-shabaab ayaa weerar nafl caari ah ku qaaday deegaanka Siib halkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin fariisiman. dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu ku bilaawday qaraxyo kadib waxaana xigay qaraxa weerar toos oo ah dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay u galeen xerada. qarax kadib waxa halkaas ka dhacay dagaal toos oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Siib iyo kooxda al-shabaab. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadalnay ayaa noo sheegay in halkaas uu ka socdo dagaal xoogan sidoo kalena la isku adeegsanayo daryanka hubka culus. sidoo kale dagaalka waxa lagu soo waramayaa in ay qayb ka tahay saakay diyaaradda dhawaan ay dawladda Turkiga Soomaaliya ugu deeqday Akanji lagu magacaabay duqeymo ka fulisay halkaas. si kastaba qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo sheegayaa inuu halkaas ka dhashay. sidoo kale waxa lagu soo waramayaa in kooxda al-shabaab halkaas lagu jibiyay maadaama kooxda al-shabaab ay u muuqato in dhawaanahanba ay fooda iyo xoogga soo saarayeen deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. si kastaba dagaalkan kooxda al-shabaab ay saakay ku soo qaaday deegaanka Siib ayaa imaanaya maalmo kadib markii dhawaan sidaan oo kale kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen Awdheegle halkaas oo fariisan ay ku lahaayeen ciidanka dawladda Soomaaliya. dagaalka Awdheegle ku qaaday sidaan oo kale al-shabaab waxay ku bilaabeen qaraxyo kadibna dagaalyahano toos u dagaalamaya ayaa gudaha xerada galay. al-shabaab ayaa muddooyinka u dambeeyay xoogga soo saartay weerarada ay ka geysanayaan fariisamaha ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose iyadoo gobolka Shabeellaha Dhexe haatan uu ka socdo guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab. gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ku sugan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Janaal Odaa Yuusuf Raage. sidoo kale waxa furimaha dagaalka asana ku sugan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday degmada Aadan Yawaal iyo Maqokori halkaas oo dhiirigelin iyo maamuus ugu tagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ku sugan oo iyaga halkaas u joogo inay kooxda al-shabaab kula dagaalamaan kana saaraan deegaanadooda. kuwa ugu gargaarana way gabraarsadaan gobonimo udirku gardarada adoonsiga kuwa ugu gargaarana way gabraarsadaan gobonimo udirku niyadkeesini malahay ku dagaalgalaan gobonimo udirku gobonimo udirku dayigayna xareyn bay ku dagaalgalaan gobonimo udirku niyadkeesini malahay ku dagaalgalaan gobonimo udirku inan kumaysi waarin bay ku dagaalgalaan gobonimo udirku dayigayna xareyn bay ku dagaalgalaan gobonimo udirku